بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وديال كسر وادا ورarka caalamka Garmal TV waxaana kamid ah qalabka difaaca cirka Ukraine oo la burburiyo xilli ay u socdeen caasimada wadanka Ukraine ee Kyiv faahfaahin dheeraad ah ayaa hadda laga helayaa kolonyo ciidan Ukraine ah oo lagu burburiyay qalabka difaaca cirka Ukraine qaybta kataalada hawada ee xal laga burburiyay gantaalada Ruushka ayaa u muuqda mid la mid ah kii Ukraine ee gasatay bishii hore madaxweynaha Vladimir Putin wuxuu baaq rasmi ah u diray ciidanka dalkaasi xilli militariga Russia gudaha u galeen caasimada dalkaasi Kyiv wuxuuna sheegay ciidanka Ukraine in gacmahooda kula wareegeen talada dalkaasi oo afgambiyeen siyaasiyiinta haatan madaxda ka ah Ukraine madaxweynaha Russia wuxuu tilmaamay inay ka sahlan tahay in militariga wada xaajood laga helo intii lala hadlayo siyaasiyiinta ku sugan Kyiv hadalka Vladimir Putin ayaa loo arkaa in ay ka go'an tahay in madaxweynaha Ukraine laga tuuro talada dalkaasi UK ayaa sheegtay in hub dheeraad u diri doonto Ukraine wasiirka ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa sheegay in UK iyo 25 wadan oo kale dhamaantood ku heshiiyeen inay bixiyaan gargaar bini'aadanimo iyo hub loogu deeqay Ukraine wuxuu u sheegay barnaamijka BBC-da in UK hadda kala shaqeyn doonto wadamadaasi sida la isku biiri lahay sida gargaar military loo sii lahay Ukraine sidoo kalena gacanta Ukraine loo geliyo laakiin ma bixin faahfaahin dheeraad ah dhinaca kale xukuumadda Kyiv ayaa sheegtay in saameynayso guuto loogu magac daray guutada caalamiga oo lagu tala galay ajaanibta doonaysta in si madaxnimo u taageeraan dalka Ukraine tan waxay noqon doontaa cadeynta muhiimka ah ee muujinaysa taageerada aad siiseen wadankan Ukraine ayuu yiri madaxweynaha Ukraine hadal uu hadda soo saaray isagoo la hadlay dadka wadamada kale u dhashay ee ka barbar dagaalamaya ciidanka Ukraine Faransiiska ayaa hub u diray Ukraine diyaaradda hub iyo qalab ayaa ka soo aanbaxday Faransiiska waxaana ku sii jeedaa Ukraine iyadoo reer galbeedka ay gargaar siiyeen Ukraine madaxweynaha Ukraine ayaa bartiisa Twitter ku soo qoray inuu la hadlay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron subaxnimadii Sabtidii iyadoo maalin cusub ay bilaabatay madaxweynaha Ukraine ayaa bartiisa Twitter ku soo qoray isbahaysiga ayaa shaqeynaya dhinaca kale waxaa la soo sheegay inuu dagaal ka socdo wadooyinka magaalada Kyiv ciidamada Ruushka ayaana gudaha u galay magaalada saacadii la soo dhaafay sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinayay cutubyo Ruushka oo ku sugan magaaladaasi waxaa kaloo jira sawirro muuqday inuu muujinayo Iran laba baabuur oo taanka Ruushka oo ku gudbaya magaalada Kyiv warkii ugu dambeeyay dalka Ukraine caasimada Ukraine ee Kyiv ayaa ciidamada Ruushka ku garaaceen gantaalo balse waxay wali ku jirtaa gacanta dawladda madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay dadka reer Ukraine ay la dagaalameen ciidamada Ruushka ee ku sugan Kyiv dadka degan xaafadaha Kyiv ayaa waxa laga codsaday in guryahooda joogaan waxaana wali gobollo badan oo ka tirsan dalkaas Ukraine ka socda dagaal u dhaxeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine sawirro lagu qaaday xagaameedka ayaa muujinayay in ciidamada dhulka Ruushka oo la isku keenay magaalada Nova oo ku taal koonfurta Ukraine qoraantii Sabtidii ciidamada Ukraine ayaa dagaal adag kula galay kuwa Ruushka magaalada labaad Ukraine ee Kyiv u dhow xuduudda Ruushka bandowga magaalada dhan ayaa xalay ka dhaqan galay caasimada Kyiv waxaana sii socon doona ilaa subaxnimada biri Jarmalka iyo Holland ayaa ku dhawaaqay in hub u diyaar dadka reer Ukraine halka Faransiiska oo sidoo kale ballan qaaday in Ukraine oo si doono saanad military xafiiska madaxweyne Macron ayaa sheegay in wadankiisu soo saari doono hub difaac iyo shidaal sidoo ku warantay wakaaladda wararka Reuters madaxa golaha midowga Yurub ayaa bartiisa Twitter ku sheegay 20 wadan oo midowga Yurub xubin ka ah ay fududeeyeen gaarsiin saanad military oo loo geeyay Ukraine afayeen u hadashay dawladda Faransiiska ayaa sheegtay ra'iisul wasaaruhu waa amaanay geesinimada cajiibka leh madaxweynaha Ukraine iyo dadka reer Ukraine dhanka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in duulaanka Ruushka uu sababay in ka badan 100,000 oo qof oo ka qaxay dalka Ukraine ay u gudbeen dalal galbeed ee ka xiga dalka Ukraine muxuu damacsan yahay madaxweynaha Vladimir Putin wuxuu yiri wuxuu u maleeyaan in aan iska sii fadhi doono Ukraine waxay raadinaysaa in loo cadeeyo waqti ku beerayso NATO halka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka uu yiri annaga waxaa waajib nagu ah inaan xaqiijino in Ukraine weligeed xubin ka noqdo NATO balse Ruushka diiradda ma saarayo oo kaliya Ukraine wuxuuna dalbanayaa in NATO ku noqoto xuduudii ku taagneed wixii ka horreeyay 1997 madaxweyne Vladimir Putin wuxuu rabaa in NATO iska bixiso dalalka ku biiray wixii ka dambeeyay 1997 iyo inaysan hub geeyno xuduudda u dhow Ruushka taasina waxay ka dhigan tahay in NATO aysan wax dhaqdhaqaaqa iyo awood militari ku yeelan wadamada ku yaala bartamaha bariga Yurub madaxweyne Vladimir Putin wuxuu sheegay reer galbeedka in 1990kii ballan qaadeen in NATO aan lagu fidi doono hal taako ka mid ah bariga bal sidaas ay dhacday xilligaasina waxay ahayd ka hor intuusan burburin midowga Suufiyiinta madaxweynaha Ukraine wuxuu cunaqabatayn ku soo rogay nin la yiraahdo Victor oo ah nin awood badan oo u dhashay wadanka Ukraine saaxiib dhin la ah
madaxweyne Vladimir Putin Ukraine ayaa sidoo kale mamnuucday baahinta wararka saddex telefishin oo janjira dhinaca Ruushka. Mareykanka ayaa ku baaqay wada hadal galo kaasoo ku saabsan xakameed gantaalada ridida gaaban iyo kuwa ridida dhexe iyo sidoo kale in la galo heshiis ku saabsan gantaalada qaaradaha iskaga kala gudba. Ruushka wuxuu rabaa dhammaan hub nukliyeer ah ka Mareykankana aan laga soo gudbin. Ruushka ayaa ku andacoonay inuu gudoomiyo laba magaalo waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo koonfur bari waddanka Ukraine. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay ciidamadiisa gabi ahaan gudoomiyeen magaalada Kherson oo ku taala koonfurta Ukraine iyo magaalo ku taala koonfurta bari iyadoo ciidamada Ruushka ay sii wadaan duulaankii ku qaadeen dalka reer galbeedka taageersan. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidaas ku sheegay hadal uu ku baahiyay wakaaladda wararka Ruushka. Gudanta wadaagsan ku soo gabagabeeyna warka Garmaal TV aad ka daawanayseen. nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.